Jaamacadda Golis faraceeda magaalada Laascaanood ayaa adeegyo caafimaad iyo daawooyin bilaash ah gaarsiisay deegaanka Saaxa Gabagabo oo gobolka Sool. Howlgalkan oo dad badani ka faa'iideystay waxaa gacan weyn ka geystay madaxa iyo maamulka caafimaadka ee gobolka Sool, waxaana ka mahadceliyay waxgaradka deegaanka iyagoo sheegay inay ka faa'iideysteen adeeggan caafimaad ee Jaamacadda Golis ay fududeysay. Subxaana wa tacaala noo suurageliyay inaan halkan isugu nimaadno dhammaanteen. Marka kale waxaan u mahadcelinaynaa tiinka ka socday jaamacadda Golis University. aad baan ugu mahadcelinaynaa tiinkan maalin hore waxaa noo yimid gudoomiyahoodii Yuusuf Aflahaar. waxaan maleynayaa talaadadii hore inay ahayd jimcihii dhaweyd bay ballantu ahayd dawooyinkii waa dib uga dhacay. marka waxaa halkan noogu yimid dhakhaatiir aad u dhakhaatiirta iyo macallimiinta howlgalkan dawo bixinta hormuudka ahaa ayaa dhankooda hadlay. bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin waa ilaahay mahadii halkan aan ku sugannahay waa deegaanka Saaxa Gabagabo oo saaka aruuriyadii hore ugu soo baxnay safar ahaa oo safar daarnaa in dadka deegaankan loo fidiyo adeeg caafimaad oo bilaasha taasoo ay fulinaysay Jaamacadda Golis faraceeda Laascaanood. runtii mahad weynay waxa weeyaan ha ka gaadho dadka deegaankan oo runtii iyaguna si fiican uga faa'iideystay annagana si wanaagsan runtii noo qaabilay. waxaan kaloo runtii aad ugu mahad celinayaa anoo ku hadlaya afka maamulka Jaamacadda Golis wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sool oo ugu horeeyo isuduwaha gobolka Maxamed Xaaji Khaliif iyaga ismaa hospitalka weyn ee Laascaanood Cali Naasir oo runtii iyaguna qayb ka ahaa oo waxa weeyaan safarka jaamacadda ay waxa weeyaan ku fulinayso adeega caafimaad ee bilaasha qayb weyn ka ahaa iyagoo qaybtoodii waxa weyn ku contribute gareeyay safarka ay kamid ahaayeen daaweyn waxa weeyaan ay ku kabeen soo kale jaamacad ahaan waxaan uga mahad celinayaa dhakhaatiirta waxa weeyaan gobolka kamid ah oo iyaguna waxa weeyaan qayb weyn ka ahaa safarkan oo dadkii deegaankooga iyo bulshadooda waxa weeyaan runtii aan karayn goob caafimaad oo fogfog ama waxa weeyaan kharashaad ay ku tagaanba waxa weeyaan si bilaash oo mutadawacnimo runtii ugu fuliyay ma aha markii ugu horeysay mana noqon doonto hadduu rabbi idmo. alxamdulillahi rabbil caalamiin ilaahay baa mahad leh. halkan waxaan ku taaganahay qaybo ka mid ah odayaashii deegaanka Saaxa Gabagabo iyo tiim markaa ka socday Jaamacadda Golis faraceeda magaalada Laascaanood. ujeedka aanu maanta u nimi deegaanka Saaxa Gabagabo waxa weeye in balaanu soo aragno bulshada markaa ku dhaqan deegaankan iyo baahiyahooda caafimaad wixii markaa aanu ka tari karno haddii aan laydmo aanu markaa wax ka tarno. waxaan kaloo meesha markaa u nimi in safarka iyagana uu noqdo bulsho wax ku celin oo markaa bulshadii iyo adeegyadeedii baahiyihii caafimaad wax loogu celiyo wixii markaa aanu la kulanno oo xaaladoodu ay awooddeeda markaa dhaafsiisan tahayna waxaan u qorsheynay inaanu markaa ku celinno ama u dirno magaaladii Laascaanood iyo xarumaha caafimaadka. tiimka halkan jooga markaa wuxuu ka kooban yahay waa qaybo ka tirsan maamulkii jaamacadda iyo ardaydii. marka ardaydaasi waxay isugu jirtaa nerskii qaybo markaa umulisooyinkiiya oo iyaguna nala socday. sidoo kale waxaa safarka nagu weheliyey ardayda markaa barata cilmiga shaybaadhka. gudoomiyaha Jaamacadda Golis faraceeda magaalada Laascaanood Professor Yuusuf Aflahaar ayaa ka warbixiyay adeega caafimaad ee bilaash ah ee jaamacaddu ka fulisay deegaankaasi. barnaamijyo gaar ah oo ay ka mid yihiin inay ardada wax baranaysa siiba kuwa seniorka ah oo kale iyo macallimiintooda dhakhaatiirta caafimaadku ay u baxaan field trip oo ay aadaan maxaan ku raahday tuulooyinka aan MCH-yada lahayn. tuulooyin fara badan oo laamiga ku yaala ayaan hore ugu baxnay. tripkan waxay u baxeen ardada iyo macallimiintu Saaxa Gabagabo magaalo la yiraahdo 30 kilomitir Laascaanood u jirta. magaaladaas waa magaalo dad aad u fara badan ku nool yahay. qaar xanuunsanaya ku jiraan mii fara badan baa ku hareeraysan MCH-na male. arrintaa waxaad moodaa waxaan aad wax uga ogaanay markii aan u dirnay tiimka jaamacadda ka tirsan iyo macallimiintooda aan u dirnay baan wax aad u fara badan ka ogaanay. arrintaas waxay u baahan tahay in loo kaco oo magaalada laga dhiso iskuul laga dhiso
oo laga dhiso maxaan ku idhaahdaay MCH laga dhiso ardaydii iyo macallimiintii meesha tegay dee waa daawanaysaana wax aad u weyn bay ka soo qabteen runtiina waxa aad nooga caawiyey oo mashruuca nagu gacan qabtay isuduwaha iyo madaxda kale ee maamulka caafimaadka ee cisbitaalka Laascaanood oo dawada iyo qayb qalabka kamida nagu caawiyey arrintaana waxa ka faa'iideystay dad aad u fara badan oo xanuunsanayay oo dawooyinka bilaash aan u siinay markaa tiriibada kalena waxaan u bixinaa meelihii kale ee aan yana MCH lahayn baanu isleenahay aad u baxdeen waxaan soo jeedinayaa iyadana in arrintaas ay ka qayb qaataan jaamacadaha kale xitaa ardayda Fataax Maxamed telefishinka SAB Laascaanood